al-shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay ka fulinayaan deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ee maamulka galmudug. waxaa warkaasi noo haya rijaal cabdi maxamed. maalmihii lasoo dhaafay howlgalla ay fuliyeen ururka al-shabaab ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud oo uu ka taliyo maamulka galmudug, kuwaasoo horey aan looga baran in weeraradan ay noqdaan kuwo si joogto ah uga dhaca. xalay ayay ahayd markii koox hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka ceeldheer oo 30 kiilomitir u jira magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug, halkaas oo saacado kooban ay la wareegeen. inkastoo halkaas ciidanka militariga Soomaaliya iyo kuwa ka tirsan booliiska ay gaareen, kadibna ay u suurta gashay inay dib gacantooda ugu soo celiyaan. sidoo kale ururka al-shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafay isku ballaariyay deegaano hoos yimaada degmada Hobyo, gaar ahaan deegaanka Bacaadweyn iyo sidoo kale deegaano dhowr ah oo halkaasi ku yaala. inkastoo ururka al-shabaab iyo dadka deegaanka halkaas uu ku dhaxmaray dagaal, haddana habeennimadii xalay ahayd ayaa la sheegay inay gaareen deegaan hoos yimaada deegaanka Wasil ee gobolka Mudug. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay dhankooda howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab waxay ka bilaabeen gobolka Mudug, iyadoo wasiirka amniga Axmed Macalin Fiqi iyo ciidamo uu hogaaminayo ay gaareen deegaano hoos yimaada degmada Hobyo ee gobolka Mudug, halkaas oo ay sheegeen inay ka bilaabi doonaan howlgal ay ku doonayaan in al-shabaab ay dib kaga soo celiyaan deegaanada Bacaadweyne hoos yimaada ee dhawaan ay la wareegeen. sidoo kalena ciidanku ay gaaraan degmada Xaradheer ee gobolka Mudug, halkaas oo ah saldhigga ugu weyn ururka al-shabaab ee gobolka Mudug. sidoo kale ciidanka dowladda ayaa maanta ay u suurta gashay inay dib ula wareegaan deegaano hoos yimaada degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo ciidanka al-sunna hore ay gacanta ugu hayeen galmudugna ciidan ahaan hoos tagta, taas oo saacadihii lasoo dhaafay horey al-shabaab ay u yimaadeen deegaano dhowr ah iyagoo dadka deegaanka u qudbeeyay. militariga Soomaaliya ayaa saaka la wareegay deegaanada ku tirsan dhanka waqooyi dhanka koonfureed ee degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. waxaa sidoo kale magaalada Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo ka soconaya kulamo looga hadlayo xaaladaha amniga ee ka soo cusboonaaday deegaanada galmudug, iyadoo lagu wada saacadaha soo socda in madaxweynaha galmudug dib ugu laabto magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa isbedel amni ku sameeyay magaalada Jowhar kadib qaraxyo iyo dilal ka dhacay magaaladaasi. waxaa warkaasi noo haya Dabaashe. isbedel dhanka amniga ayaa laga dareemayaa magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi Hirshabelle, waxaana la sheegay in isbedelkan uu sabab u ah madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe. tani markii loo doortay madaxweynaha waxaa la sheegay in kulamo isdaba joog oo la qaatay saraakiisha dhanka ammaanka iyo kuwa militariga, taasoo keentay in al-shabaab culays badan lagu saaro magaalada inaysan dhibaato ka geysan. madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe ayaa isbedel amni oo ugu horreeyay ku sameeyay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle, taasoo hadda laga dareemayo magaalada sida ila deegaanka iyo xubno mas'uuliyiintu ay sheegayaan. muddadii 2 bilood ay madaxweynuhu xafiiska joogay waxa lagu amaanay in isbedel weyn uu ku sameeyay wax ka qabashada dhanka amniga magaalada, xilli dhowr bilow hore magaalada ka jiray qalqal amni, dilal qorsheysan iyo qaraxyo al-shabaab ay geysanayeen. shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa sheegay in hoos u dhacay falalka lidiga ku ah amni darrada, dilalka iyo qaraxyada oo ay geysanayeen magaalada hadda ay u muuqato mid aad u xasiloon. Jowhar waxaad arkaysaa xildhibaano iyo xubno kale oo iska dhaxlugeynaya ayagoo bilaa ilaalo la'aan ah, waxaana taasi la sheegay inay sabab u noqotay kadib markii ciidamada ay kordhiyeen howlgallada isdaba joogga, sidoo kalena ay ciidamadu la geeyay tuulooyinka ka fogfog magaalada, taasoo keentay inay yaraato khatarta dhanka amniga oo laga baqdin qaba in al-shabaab halkaas weerar ay ka geystaan. Maslax Maxamed oo kamid ah xubnaha deegaanka ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu howlgallo isdaba joog ay sameeyaan dhalinyaro badan la soo qabto kuwaas oo ku xiran saldhigga booliiska magaalada Jowhar. su'aalo lagu weydiinayo xildhibaan Xasan Cabdiqaadir Muuday oo kamid ah xubnaha baarlamaanka Hirshabelle ayaa sheegay in madaxweynuhu wax badan uu ka qabtay dilalkii amni darradii magaalada ka jirtay. wuxuu intaa ku daray in la kordhiyay ciidamada saraakiisha booliisku si ay ka howlgalayaan guud ahaanba magaalada. waxaa arrimahan ku soo aadaya xilli magaalada Jowhar inta la dooran doorashada Cali Guudlaabe ka hor magaalada ka dhacay dilal qorsheysan oo loo geysanayay xubno kamid ah mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle, xildhibaano, wasiirro iyo siyaasiyiin kale. qaraxyo bam gacmeedyo ayaa magaalada ka dhacay, taasoo u muujinaysa in qalqal amni ay ka jira magaalada. laakiin magaalada waxaa la sheegay dhowrkii toddobaad ugu dambeeyay ciidamada booliiska
ee dowladda Soomaaliya halkaas ay geysay iyo waliba ciidamada Hirshabelle ee militariga iyo kuwa Amisom ay sameeyeen howlgallo isdaba joog ay keentay in magaaladu ay noqoto mid aad u nabdoon hoosna u dhacdo dilalka qorsheysan ee al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada. isbedelka laga dareemayo amniga magaalada Jowhar ayaa ku soo aaday xilli magaalada Jowhar lagu qabanayo doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya taasoo la qorsheynayo sanadka 2021. madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe ayaa hadda ku sugan magaalada Muqdisho oo qayb ka qaadanaya dadaalada xal u helista muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka. waxaana la filayaa in sanadkan 2021 in la gudagalo doorashada dalka inkastoo wali khilaaf xooggan uu ka jiro arrimaha doorashooyinka dalka. safiirkii hore ee Mareykanka ee Soomaaliya ayaa dowladda Mareykanka u soo jeediyay in qunsuliyad ay ka furato magaalada Hargeysa. waxaa warkaasi noo faahfaahinaya Maxamed Bootaan. dowladda Mareykanka ayaa loo soo jeediyay inay si degdeg ah qunsuliyad uga furato magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland taasoo kor u qaadaysa xiriirka labada dhinac sida uu sheegay safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Soomaaliya Ambassador Stephen Swart oo ahaa safiirkii Mareykanka ee Soomaaliya inta u dhaxaysay 2016 ilaa 2017 ayaa dalkiisa u soo jeediyay dalabkan oo meel ka dhac ku noqonaya qarannimada Soomaaliya maadaama ay Soomaaliya ku doodo inay tahay dal madax bannaan. Stephen ayaa qaba in Mareykanka uu midowga Afrika kala shaqeeyo sidoo loo dhisi lahaa waxa uu ku sheegay meeqaamka maamulka Somaliland isagoona carabka ku adkeeyay in laga maamulmaan ay tahay in madaxweynaha xiga ee Farmaajo uu ka mid dhaliyo wada hadallada Somaliland. masaafada inay ka fog tahay Muqdisho Mareykanka waa inuu Somaliland ka sameystaa qunsuliyad si ay u caawiso muwaadiniinta Mareykanka ganacsiga iyo in la dhiso xiriirada ayuu ku yiri Stephen qoraal dheer oo arintaasi kaga hadlay. wuxuu intaas ku sii daray waa inay sidoo kale kala shaqeysaa midowga iyo dhinacyada kaleba in la xaliyo maqaamka Somaliland iyadoo madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya madaxweynaha Farmaajo xiga lagu dhiirigelinayo inuu sameeyo wada hadallo degdeg ah oo macno leh. sidoo kale waxa uu sheegay in Mareykanka ay siin karto xulashooyin istiraatiijiyadeed oo faa'iido leh xiriirka Somaliland oo kor loo qaado marka loo eego deganaanshaha Somaliland iyo halka ay ku taalo gaar ahaan degada Berbera oo marin muhiim u ah. soo jeedintan ayaa sii xoojinaysa mid hore uu Mareykanka ugu soo jeediyay Majel Robin oo ah aqoonyahan Mareykan ah oo ka tirsan macadka AEI inta badan ugu dooda madax banaanida ay ku dooda maamulka Somaliland. Robin ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u soo jeediyay inay si degdeg ah sidii ay qunsuliyad ugu furan lahayd magaalooyinka ay Hargeysa ka mid tahay wixii ka dambeeyay bisha January ee 2021 ka oo uu talada Mareykanka la wareegayo John Biden. dowladda Soomaaliya iyo Turkiga ayaa ka wada hadlay hirgelinta heshiisyo horey loo wada gaaray. wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha Soomaaliya mudane Xasab Cabdinuur Cabdi ayaa danjiraha Turkiga ee Soomaaliya Mahmed Yilmaz kala hadlay dardargelinta heshiisyadii is-afgaradka ahaa oo ay hore u wada galeen wasaaradaha labada dowladood ee walaalaha ah. kulanka labada mas'uul ayaa ka dhacay xarunta safaaradda Turkiga ee Muqdisho iyadoo hore u jireen heshiisyo ku saabsan biyaha iyo tamarta oo labada dal ay wada gaareen. labada mas'uul ayaana isla meel dhigay sidii wax looga qaban lahaa biyo yarida ka dhacda dalka xilliyada roobaadku ee yaraadaan. wasiirka tamarta iyo kheyraadka iyo biyaha wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha kulankan oo la yeeshay danjiraha Turkiga waxaa ku helinayay agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdiwaaxid Ibraahim Axmed iyo qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda. markaana dowladda Kenya ayaa kordhisay ciidamada ilaalinaya basaska soo aada degmooyinka xiga dhinaca Soomaaliya. waxaa warkaasi noo haya warsoo saaraheena Duur Dabaashe. al-shabaab ayaa 3 toddobaadii ugu dambeysay waxay kordhiyeen weerarada isdaba jooga ay ka geysanayeen gudaha wadankaasi Kenya gaar ahaan magaalooyinka Mandera, Garissa, Wajeer oo meelaha ugu badan al-shabaab hadda weerarada ay ka geysanayaan. sidoo kale waxaa yaraatay basaska dadweynaha ay raacayaan kuwaas oo ay ka baqayaan in weerar ay kala kulmaan al-shabaab. saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ama kuwa booliiska wadankaasi Kenya ayaa warbaahinta dalkaas waxay u sheegeen in diiradda saari doonaan hadda wixii ka dambeeyay warbixinada la xiriira al-shabaab iyo
baadigoobkooda gaar ahaan markii al-shabaab ay kordhiyeen gobolka waqooyiga wadankaasi Kenya dhaca. Dowladda Kenya ayaa ciidamo badan oo booliis ah u diyaarinaysa in howlgalka dhanka ammaanka deegaanada Soomaalida u badan balse maamul ahaan hoostaga Kenya waxaana la sheegay in halkaas in meelaha ugu badan ee weerarada ka dhacay al-shabaab ay geystaan. Saraakiisha maysan soo bandhigin tirada askarta ee ciidamada Kenya ee la geenayo deegaanada iyo habka loo fulinayo howlgalada balse waxay qireen in ay dusha ay saarayaan mas'uuliyadda amni darre ee ka jirta gobolka waqooyi bari wadankaasi Kenya oo ay al-shabaab qaraxyo iyo dilalba ay ka geystaan. Habeennimadii Talaadadan kasoo gudbinay 22 Janaayo waxaa la weeraray bas maraya meel u dhow magaalada Wajeer sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka. Hay'adaha ammaanka ee Kenya waxay xilligaasi ku daba jireen saldhigyada in ay baaraan oo ay sidoo kale dabgal ku sameeyeen xubnaha la xiriira al-shabaab ee weerarada geysanaya. Saldhigyada degmooyinka ugu waaweyn ee dhaca gobolka waqooyi bari Kenya waxaa soo gaaraya cabasho isdaba joog ah oo dadku ay ku cabanayeen cabsida la xiriirta al-shabaab. Qorshooyin hore ayay dowladda Kenya u dejisay oo dhabaha u xaaraya xasiloonida degmooyinka iyo waliba basaska dadweynaha ay raacaan balse way dhicisoobeen sababta ugu weyn waxaa lagu sheegay in askarta qudhooda mararka qaarkood ayagu ay ka baqaan al-shabaab taasoo keenaysa in ay yareeyaan howlgallada. Sidoo kale al-shabaab ayaa waxay kordhiyeen miinooyinka ay dhigayeen wadada dhinaceeda kuwaas oo lagula eeganayo gaadiidka ciidamada. Macallimiinta ajaanibta ee ku sugan gobolka waqooyi bari wadanka Kenya ayaa hore iskaga tagay sababo la xiriira cabsi soo wajahday waxaana booliisku dhamaadkii sanadkii 2020 waxay soo saareen digniin la xiriira dadka jooga ama u dhadhowba magaalooyinka Bandera, Garissa, Wajeer ilaa Nairobi in taxadar dheeri ay sameeyaan maadaama laga baqdin qabo in weerar al-shabaab halkaas ka geystaan. Al-shabaab ayaa u muuqanaya mid sii kordhinaya weerarada ay ka fulinayaan gudaha wadankaasi Kenya. weli waxaad dhageysaneysaan warka duur idaacadda Risaale magaalada Muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa markaana dhulgariir xoog leh ayaa ku dhuftay jasiiradda Sulawesi. dhulgariir cabirkiisu uu gaarayo 6.2 ayaa ka dhacay jasiiradda Sulawesi ee dalka Indonesia halka oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen dhismayaal badan ay ku waxyeeloobeen xalay sida ay sheegtay wakaaladda ka hortagga musiibooyinka ee dalkaasi. Macluumaadkii ugu horeeyay ee wakaaladda yareynta musiibooyinka ee wadanka Indonesia ayaa muujisay in 4 qof ay dhinteen 637 kalena ay ku dhaawacmeen halka ay jiraan 3 dhimasho kale oo dheeraad ah iyo 20 kale oo ku dhaawacmay deegaanka Mamuju. kumanaan qof ayaana ka qaxay guryahooda si ay u raadsadaan badbaado markii ay dhulgariirku ku dhuftay wax ka yar 1:00 aroornimo ee subaxnimadii Jimcaha taa oo waxyeeleysay ugu yaraan 60 guri. wakaaladda musiibooyinka ee Indonesia ayaana sheegtay in dhulgariirka isdaba jooga 24 saac ee lasoo dhaafay ee sababeen ugu yaraan 3 dhul oo go'ay iyo koronto la'aan iyo korontadii oo la jaray sanadkii 2018 dhulgariir baaxad leh ayaa ku dhuftay magaalada Palu ee jasiiradaasi halka oo ay ku dhinteen kumanaan qof. guud ahaan